وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة. وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. بشهر مزاياه أكمل، تفوق الشهور سواه. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. kusoo dhawaada xalqadihii aan kaga sheekeynay isla markaa aan dul istaageynay qisadii nabigeena Muuse calayhi salaatu wassalaam. waxay noo maraysay qisada in nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam hooyadiisa ayadoo Ilaahay ku kalsoon inay ku tuurtay sanduuq ay sameysay ayna dhaxgelisay cunugeeda nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam wabiga Niil. markii ay ku tuurtay kalsoonida Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay tala saaratay kadib ayaa waxaa helay waxay tahay Ilaahay uu leeyahay faltaqatahu aalu fircawn. sanduuqa si lama filaan ah waxaa ku helay waxay tahay fircawn dadkii u shaqayn jiray bal dadkii ciidamadiisa ahaa. fircawn ciidamadiisa aad bay uga cabsan jireen sababtoo ah waxay ahayd xukunkiisa maa uriikum ilaa maa araa, aniga ila tashta, anaa go'aanka leh, wax kastoo aad samaynaysaan waa inaa aniga ogaadaa xitaa haddaa idinka aa ii shaqaynaysaan. fircawn sanduuqii ayaa loo keenay. markii ay fureen ayaa waxay arkeen wax cajiib badan. waxay arkeen cunugaasina uma eko dadkii qibtiyiinta dadkii magaalada Masar degnaan jiray. waxay isla markaa fahmeen inuu cunugaa yahay wiil reer bani Israa'iil ah. fircawn sida caadadiisa ahayd, dhaqankiisa ahayd, cunug kastoo reer bani Israa'iil xitaa ha u ekaado haddayba tahay sanadka dilka in la dilo, cabsi uu ka qabo inuu booskiisa ka banadayo ama uu ka qaadanayo. ayadoo sidaasi ay tahay, fircawn xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Aasiya ayaa halkaa joogtay. waxay ku dhahday waxay tahay fircawn, cunugan hadilin, qurratu caynin lii walak. inna qabubsi buu noqonaya wiilkan sidaa u quruxda badan, sidaa u wanaagsan. laa taqtuluuh, ha dhibaataynin, hadilin, waan ku baryayaa fircawn ninkeygiyo hadilin bay ku dhahday fircawn. waxayna ugu sii dartay ayadoo qalbiga fircawn ay rabto inay dejiso, casaa an yanfacanaa aw natakhidahu walada. waxaaba laga yaabaa inaa wiilkan ka dhigano wiil oo annaga na anfaca amaba ina qabobsi ay noo noqoto. hadilin. fircawn iyo Aasiya baa lagu magacaabi jiray xaaskii fircawn. xaaskiisa aad buu u ixtiraami jiray sababtoo ah way caqli badneed, way xigmad badneed, way awood badneed. aad iyo aad bay karti iyo xigmad iyo wax kasta u dheereed. taa awgeeda wuu aqbalay fircawn inuusan wiilkaasi dilin. soo cajiib ma ahan in nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam shalay hooyadiisa ay u cabsanaysa in la dilo, maantana fircawn gacantiisa uu ku jiro, isla markaa fircawn uu dhaafay uuna joogo guriga fircawn. maxaa dhici doonta low? حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة. وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو. nabi muuse hooyadiisa waxaa ka muuqda waxay tahay murug aad iyo aad u badan, weliwel aad iyo aad u badan sababtoo ah waxaa ka maqan waxay tahay cunugeedii ay dhashay ayaa ka maqan, 9 bilood caloosha ay ku siday ayaa ka maqan. kadib ayaa gabadheedii waxay ku dhahday waxay tahay nabi muuse walaashiisa, baxraadi nabi muuse raadi in qof uu helay oo suuq in laga warhaayo iyo wix la mid ah oo dhan. gabadhu way baxday, waxay ogaatay ay aragtay nabi muuse inuu joogo guriga iyo qasriga fircawn lana raadinayo haweeney naas nuujisa. kadib waxaa dhacday waxay tahay nabi muuse walaashiisa waxay dhahday miyaan idin sheega, miyaan idin tusaa yacni qof haweeney ku fiican naas nuujinta. kadib waxaa allah waxay tahay haa, sababtoo ah nabi muuse dumarka oo dhan wuu diiday, dumar walbaba wuu oon jiray. kadib gabadhu way baxday, waxay aaday waxay tahay hooyadeeda
way u sheegtay waxay dhahday waxay tahay hooyo nabi muuse wuxuu joogaa guriga iyo qasriga fircawn ayuu joogaa waxaana la raadinayaa waxay tahay habeenay si yacni ay u naas nuujiso hooyadii aad iyo aad bay u naxday sababtoo ah waxay ka baqaysay waxay tahay muuse inuu aado inuu helo fircawn haddana guriga fircawn ayuu joogaa way baxday ayadoo walwalsan guriga qasriga fircawn ayay aaday kadib waxay aragtay waxay tahay muuse ayay aragtay yaa allah ka warama dareenkaas cunug maantana aad ka walwalaysay hooyo aragtay ka warama ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay mataqaanan faradadnaahu ilaa ummih hooyadiisa ayaan u soo celinay si ay isheeda ugu qaboobsato sababtoo ah ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday mataqaanan inuu u soo celinayo wiilkeeda wuuna u soo celiyey ilaahi subxaanahu wa tacaala fircawn soo muusan sheegin awood soo muusan dhihin ana rabbukum alaclaa waa aniga rabbigiina ugu sareeya haddana cunugan oo hadhow baabi'iisa iyo burburkiisa sabab u noqonaya gurigiisa ayuu ku barbaaranaya hadda gurigiisa ayuu ku tarbiyeenaya sababtu mataqaanan arrintan dhan waxaa wata ilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay hadduu yidhaahdo kun fayakuun way noqonaysaa markay aragtay laabta ayay saartay nabi muuse oohinta dhan wuu joojiyey wuuna aqbalay cajiib bal waxaa cajiiba mataqaanan nabi muuse hooyadiisa lacag ayaa lagu siin jiray naas nuujinta ay naas nuujinayso ka warama wiilkaaga wuxuu ku barbaarayaa waxay tahay guri boqortooyo ayuu ku barbaarayaa adigana lacag ayaa lagugu siinayaa naas nuujinta aad naas nuujinaysid cunugaaga sababtoo arrintan ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa wato sababtoo ah nabi muuse hooyadiisa ilaahay ayay ku kalsooneed waxay dhahday waxay tahay yani marka ugu horeeya markii la amray cunugeed inay webiga ay ku tuurto markay samaysay ilaahi subxaanahu wa tacaala markaas ayaa wuxuu u ballan qaaday waxay tahay inuu u soo celinayo haddana ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu u soo celiyey ilaah wuxuu leeyahay mataqaanan sababtoo ah yani waxaan rabnay inay ogaato ayada ballanqaadka ilaahi subxaanahu wa tacaala dhab inuu yahay ilaahay haddii wax ku ballan qaado way dhacaysaa ilaah sameey oo kaliya adiga waxa oo lagu leeyahay laakiin ilaah subxaanahu wa tacaala ballanqaadkiisa way imaanaysaa ilaah subxaanahu wa tacaala sida nabi muuse hooyadiisa uu nabi muuse ugu soo celiyey wuu awoodaa adigana xaaladahaaga iyo murugtaada oo dhan farxadaada inuu dib kuu soo celiyo ilaah wuu awoodaa cunugaaga caasi kaa noqday inuu baari kaa dhigo uu dib kugu soo celiyo ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu awoodaa ilaahay wax walba wuu awoodaa ku kalsoonaaw isku dhiib ilaahi subxaanahu wa tacaala sababtoo ah qofka ilaahi subxaanahu wa tacaala ku kalsoon ilaahi subxaanahu wa tacaala qofka isku dhiibo ilaahi subxaanahu wa tacaala qofkii aamino ilaahi subxaanahu wa tacaala arrimihiisa dhan wuu u fududeeyaa ilaahay wax walba wuu awoodaa walaalayaal ilaahay waxaan weydiisanayaa sida nabi muuse ugu soo celiyey hooyadiisa anagana farxadeena iyo wanaageena iyo khayrkeena inta ka luntay in ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo celiyo iyo wix la mid oo dhan ku kalsoonaw ilaahay subxaanahu wa tacaala markaas ay wax walba imaanaysaa insha allahu tacaala arrintaas ayaan ka baranayna oo ah inuu qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kalsoonaado ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu isku dhiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala idin xifdiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه